kulan haboon daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa janaalka Idaaros waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo aan kaga hadlaynaa arrimaha jacaylka oo ay noogu marti tahay Liin Xaaji Koobe oo kamid ah dadka ka faalooda jacaylka waxaana wareysigan ku eegi doonaa farqiga kala duwan ee u dhaxeeya jacaylka sanadkan iyo waliba midkii sanadihii hore iyo saameynta waalidku ay ku leeyihiin ama ay ku yeeshaan xiriirada jacayl ee dhexmara dhalinyarada. Liin waa ku soo dhaweynaynaa soo dhawo waa dhawahay ciida in badan janaalkaaga waa ku dhawahay waa maasan tahay saan sheegayba furfuris kale iyo ma u baahnaba wax isweydiin kale ugu horeyn waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo balna dadka na daawan doona aad u sharaxdid waa maxay jacaylku. jacaylku waa ilma aragti waa sida dabeesha oo kaleeto cidna ma dareemi karto cidna ma sheegi karto wax soo boodooy ah iyadoo ay tahay dana jacaylka waqti xaadirkan jira iyo jacaylka hore farqi weyn u dhaxeeyo waan u tagi doonaa midaasi farqiga oo kala duwanaanshaha labada jacayl. dad badan waxay isweydiiyaan jacaylku ma yahay wax la arko ama wax leh calaamado lagu garto dadkaas iyaga maxaad leedahay? in badan jacaylka wuu leeyahay calaamado fara badan oo lagu garto ayuu leeyahay. jacaylka la sheegayo jacaylka moorta ma ahan wax dadka badanaa hadda waqti xadarkan joogo waxay dhahaan waa ku jecelahay erga ku jecelahay wuxuu noqday wax iska fudud balse ahaatee jacayl marka la dhaho erga jacayl waa wax aad iyo aad u qiimo leh una baahan mudnaan iyo sharaf ayuu u baahan yahay. midda kaleeta jacaylka lama arko waa wax aan la arkaynin waa sida dabeesha oo kaleeta isla markaa first wal qofku markuu indhahaaga uu ku dhaca ad qalbiga ka dareemaysid waana waxayna yiraahdaan badanaa dadka ay yiraahdaan wax jira ma aha jacayl. jacaylku waa wax jira xaqiiqda qofku markuu jacaylku wax ka arka ayuu wax ka sheegi karaa haddii uusan qofka jacaylku waxba ka arkin wuxuu leeyahay waa wax iska yasiran. waa gartay waa maasan tahay Liin waxaad sheegtay in jacaylku wax yasiran uusan ahayn kaliya uu ka warrami karo qof jacayl uu ku dhacay adiga weli jacayl ku dhacay in badan ciidaay 1997 ayaan wiil wada dhiganaynay iskuul wiilkan wada dhiganaynay iskuulka xilligaa lama aqoonin taleefan waxaa la isku diri jiray warqad bashqad la soo geliya ama gabar saaxiib lagugu soo dhiibo ama buugaaga lagu dhexgeliyo xilliga iskoolka saasa ku wada xiriiri jirnay waa form 1 form 2 form 3 form 4 afar sano wada soconay. alxaasil markii hore wiilku uu isoo bandhigay jacaylka haduu isoo bandhigay anna waan jeclaa waan ka aqbalay balse waxaan go'aan ku gaarnay in aan waxbarashadeena dhameysano mar allaal markaan waxbarashadeena aan dhameysano kadib inaan hadana aan sameeyno aqalgal una iga doonanayo waalidka. ultimate wiilkii waan isku afgarnay form 1 form 2 form 3 form 4 aan wada soconay. waxaa laga yaabaa gabdhaha hadda jiraan in sanad xataa qof bini aadan ay soo wadi karin oo dhahay maxaa waqti iskaga dhuminaya xaqiiqdii marka aan kaaga hadlo qofka markuu asaga qofkan uu daneynaya sanado iska dhaafay 10 sano waa soo karaa illa waa jacaylka dhabta ah haddii laakiin uu noqdo jacaylkii wax aan nacamti waa ku jeclahay erga iska galiixi ama danaysa uu noqdo wax faa'iido leeyahay malahan. form 1 form 2 form 3 aan wada soconay kadib alxamdulillah jacaylkeen waan ku guulaysanay. maadaama xilligaas uu ahaa xilli aysan jirin social media wax loo yaqaano ama telefoonada lagu hadlo xataa aysan guryaha laynu ku jirno kaliya ay warqadahay jacaylkaaguna muddo 4 sano oo waqti dheer hadda uu qaatay caqabadihii kuubaadka ee la kulantay maxaa kamid ahaa? ciidahay caqabadaha waxaa kamid ah horta xilligii hore kulanka hadda sida loo wada kulmaya ama gabdhaha hadda nimanka ay u raacayaan ama hotel la tagaaya ama meel la aadaya ama gurigiisa loo raacaya ama gurigeeda u imaanaya xilligaas ma soo jirin. xilligaas waxaa jirtay inuu wiilka asaga ku imaanaya markuu ku imaado laba gambar ah banaanka dhiganaysaan waalidku halkaas fadhiyo mideeda kale ta aragtidiina xataa marmarka qaarkood waxay noqonaysaa daciif ay noqonaysaa ama aad xilli cajiin lagu dira ama xilli muxuu ah wax adiga daqiiqad wax lagu dira inaad qofkaas aawada kulantaan is aragtaan oo hadda sheeko aadan dhameysan karin oo hadan dib ka sii cabsanayso hadii markaas ixtiraamka waalid waa u jiray ixtiraamka waalid waa u jiray waalidka waa laga dambeyn jiray ixtiraam u lahaa. hadda waxa arkaysaa wiil hooyadiis dhahay ama gabar hooyada dhahay qaalam u baahnay ani
war intaaba maanta hooyadana soo hor istaagna ani ninkanaan rabaa ilaa ama ninkan ma dhihi karin awood uma lahayn hadda waxaa arkaysaa gabadh inay tiraahdo cawa ninkan maalin ninkan ay waaridka ay u daariso oo gabadhii ninkaas meel u geyn waayo waaridka ayadoo ka tagtay meel u geyn waayo ya xilligaas waaridkana ay dhaafta asagana aysan jirin marka waxaan kula talin lahaa gabdhaha waalidka in laga dambeeyo ixtiraam la siiyo waa laydin dhalay xaq baa laydinku leeyahay ama wiil ha noqoto ama gabar ha noqoto ixtiraamka waalid ninka maanta waalidkiis ka duceysta meel buu gaaraya laakiin hadday noqoto ani midkan kelix aan fiirinayaa inkastoo hadda ciidaha jaceylkii hore jaceylkan farqi weyn oo aad iyo aad u weyn u dhexeeyo hadday daawanayaan ay maqlaan waxaan kula talin lahaa ama aan ku waanin lahaa in ducada waalidka la qaato waalidka laga dambeeyo ixtiraam uu jiro oo waalidka hadalkiisa la maqlo aan laga hor imaanin waalidkii waa gartay noloshu waxay ku dhisan tahay jacayl sidaad sheegtay laakiin dadka inta fahamsan ama garowsan noloshu inay jacayl ku dhisan tahay waa dad yar marka laga soo tago xiriirkaas jacayl ma jirin xiriiro jacayl oo dhibaatooyin leh oo adiga kusoo maray in badan way jirtaa wiilkan hadda aan kuu sheegaayo 4 sano aan wada soconay markaan aniga aan aabahey u geeyey aaba waxaan iri wiilkaan aan israbnaa hooyadii hataa maanan keenin aabaan goon ula faqay horta waalidka markaa la saaxiibto wax walba ay ku fududaanaya hooyo saaxiibaa la noqdaa aaba saaxiibaa la noqdaa lagama dhigta taa waalid lagama dhigta waxaa laga dhigtaa saaxiibaa laga dhigtaa xilligaa wax walba aday ku fududaanayaan aabaan u tag waxaan aaba miyaha wiilkaana maxaa naga dhexeeyaa jaceyl haddana guuru isoo bandhigay saasaana rabaa wuxuu yiri waa ay qabiilkiisa waa ayo qabiilkiisa aaba waxaa iri waxaas iska daa qabiil maanta wuxuu yahay ma lahan ninkan anaa kuu keenay igura wuxuu yiri muddo 4 maalmood isii 4 maalmood kadib aan ka fikirayaa wiilkii wuxuu yiri maadaama aaba uusan leeyahay maxaa subinaa waa ku qasbanahay inaan aabahey sugo 4 biri uu sheegay aan sugano markii dambe uu yimid asii hooyo wada hadleen sidii arinkayga leeyahay ugu dhameeyay haddii xilligaas aniga aan iraahdo aniga 4 maalmood sugo 4 sano soo suganay sidoo ugu dhihi karaa anigaas aniga aan masaafo u raaco maxaan haystaa wax natiijaan haysta ma lahan marka in badan guurka masaafadana waan ka hadlayaa waan gartay kasoo gud markii jaceylkaasi aad kasoo gudubtay ama aad heshay wiilka dhibaatada intaa leh u soo martay xiriirkiinu ma noqday mid waara si fiican in badan mid waara wuu noqday inkastoo markii dambeetana caqabad oo dhanka waalidkiisa ay ka timid aanan dhahay maadaama adiga waalidkaaga buuq maalin walba laguma jiri karin waxaan ka onsanayaa inaan walaaltinimadeeni ay sii weynaato jaceylkii shalay aan isu qabnay mid kasii qiimo badan banaankana inoo jirto ilaa haddana waa is xiriirinaa waa tahay xiriirkaas jaceyl marka laga soo gudbo xiriiro ka dambeeyey ma samaysay oo ma jiraan ciiday may waayo qofka bini aadanka ah first one jaceylka ugu horeeya markuu asaga uu qiimeeyo oo in badan uu qiimeeyo qiimihiisana uu waayo wiilka ilaa hadda waqti xaadirkan wuu jecel yahay laakiin caqabad oo dhanka waalidka ah isqabsiga badanna faa'iido ma lahan ayaan horta aniga ugu tala sulay dhowr jeer xataa barnaamijka isku soo qaadan waxaa irmaya ilaa abtina waan taaganahay waa tahay waxaanu imaanaynaa dhinacii farqiga oo aan mar hore ka dhawaajisay balse aan kula dib u dhiganay maxaa farqiga u dhexeeya jaceylka imikii hore in badan ciidaha jaceylka hadda jira iyo midka horeeto midka hadda jiro waa mid danaysi ah waxaad arkaysaa in badan gabar leh subaxii midaan jeclahay galabkii midaan jeclahay yaasirka midaan jeclahay wiil dhahaya gabar wadaa gabadhan waan jeclahay mid kale haddana ku leeyahay waa jeclahay waa yaabee qalbiga ma hal qalbibaa mise waa 100 qalbi ciidahay ya shimbir 2 gad ma wada gorto qalbina labada ruux ma wada qaado marka in badan waxaa fiican ilaa inta hadaad ilaad midka rasmigaad weynaysaa waayo haddaan subaxii aan Saciid la hadlo oo casirkii aan Maxamuud la hadlo oo duhurkii aan Faarax la hadlo wax natiijaan helay mala ilaa midka ii fiican iyo midka kale ma aqaano marka waxaan kula talinayaa gabdhaha joon inay nacamti qof ay wadaan hadii isfahmi waayaan ay kala haraan haddana midna qof kale ay qabsadaan ha saasaan ilaa waxa la yiri dharigii gacmo badneeya wuu fuud xaraariyaa Soomaalidu kuma mahada ku soo dhawaa kanaalka ciida hadii aad cusub tahay soo dhaw ku celi hadana
kusoo dhawow kanaalka ciida haddii aad cusub tahay soo dhawow.